Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Ustaad Maxamed Saalax oo aad si fiican u garanaysaan hadda ka horna aad la socoteen jilibyo qafi cajalado aan leeyahay. Insha Allah caaway waxaan moodaa inaan mashquula wax badan. Waxaan rabaa inaan een, dhowr qodob ka hadlo. Waxaan malaynaa backgroundkii wax badan inaan habeeyey, computerka wax ka bedelay. So insha Allah will be better kuwii hore. Een, insha allah ma noqon doono kii ugu dambeeyey kuwo badan oo kalena waa soo wada insha allah dad kalena waa laga yaaba inaan la qabto barnaamijyo noocan oo kale ah su-aashu caawaan rabo inaan qodobadan keeno waxaa ka mid ah kow inagu dadkeena qurbaha last 30 years dad baan wax baraynay dad baan wax barayseen hooyaydu waalidka isbisheen hooyayinka intaa waa ordayseen dhakhaatiir baa soo saarteen isbitaaladay ka buuxaan carruurteenni waxay ka buuxaan waa dhakhaatiir weeye waa nersi weeye waa macallimiin weeye waa accountant weeye waa lawyers weeye haddana iyagoo saasa baa hooyooyinka soomaalida iyo communitygu waxay taagan tahay 20 sano ka hor meeshaa taagnayn oo ah hooyadii waa in la caawiyo hallay caawiyo community malihi sidii baa loo caawinaya sidii loo caawin jiray baa loo caawinaya the question is marka warheedi aaw aqoonyahanadii aaway tan kale dhibta jirta waxay tahay isla guri kasta waxaan ku soo aadi karay ilaa 3 aqoonyahan wax jaban ku aamini mayno waxaa laga yaabaa inaad foom kugu soo dhacay aad maxamed saalax u yeerto ama aad community geyso carruurteenna aqoontii ay barteen haddaynaan u shaqaysiin haddaynaan aaminin yaa aaminay maxaa dhacaysa marka carruurta waa shaqaystaan ingiriis bay ku hadlaan shaqay ka imanayaan qolkooday galayaan GCSEda waxba kama duwana oo A levelka waxba kama duwana kan ugu fiican baa kule hooyo biilka qayb wixiga bixi waxaa la mid tahay nin baa wuxuu yidhi gaala hadda ka hor muslimiintu waxay la mid yihiin dad guri buuxa ridda ka taagan marka dadka kale intay gudaha galaan bay qaadadii fulayn hoo gudaha ka soo saaraya I don't know how aan idinku sheegahay kulli guryaheenna level baa jooga jaamacadaa jooga ku graduatedaa jooga welina waa qatannahay hallay caawiyoy waqadi maaqaaney baaba'ayey hallay tarjumoy walaalayaal carruurtan caawa way 25 years aad u lacag intaa u bixinayso tuushan u bixinayso oo yurub u timi oo wax barta carruurtaada waay waxaad la mid tahay qof lacag haysta oo qadana baryo tamaya carruurteennu wax aanay qaban karin ma leh carruurta guryaha inoo jooga hadda ka bacdi uma baahnid ba in qof kale wax ku tarjumo warqadda inay ku akhriyaan waayo oo daawada ku akhriyaan waayo oo tuushinka carruurta kale u dhigaan waayo oo riboortka akhriyaan waayo oo adiga hataa rabtooda waa baran iyagii baa wax bartay laakiin am very sorry islaan soomaaliya waxay tiri walaalo wiilkayga la tali laba maadu isku haya inuu macallin noqdo maatis iyo inuu science 3 maado waxayna hal tuur labada okay meel baan raacnay maalinta meedan waxay tiri gabadheedoo yeernayna raba inaan la taliso suusaan oo kale life markaan wixii ka meel saarnay bay gadaal waxay iga sheegtay ninkeedu inuu dhakhtar yahay no walaal haddii gabadhii ninkeedu dhakhtarka ahaa aniga ay tala i weydiiso yaa la talinaya kuwa single momka ama raggood aniga waxba baran this the problem marka gabadhaas dhakhtarka qabay kuma kalsoona oo nin shaqaysta waxaa raba inay tiraahdo miiska soo fariiso odayga iyo carruurta iyo dib waxbartaa tahay dhakhtar baa tahay maxay kula tahay waxaa dhici karta inuu yidhaahdo because waxbarasho taa waxay muujinaysaa kalsooni darrada aan ku hayno inagu dumarku raggeenna wax ma weydiino carruurteenna waxbarata wax ma weydiino inagii markasta dad kale aan ku xirannahay halkaas waxaa ku jira waa dad waxay soo qatan baan nahay pointiga marka waxa weeye
bliis bliis dadka aqoon-yahanada ha lagu shaqeeyo. tan kale dhibta dhacda waxa weeye dadkan mar horaan dhuminay luqadeeni ma yaqaanin dhaqankeeni ma yaqaanin laakiin good news carruurtan ka hadlayo dhallinyarada iminka 25 26 dhaqanku wuu ku jiraa ha laga soo saaro waktigooda qayb ha laga isticmaalo ha la yidhahdo kaala communitiga caawi guriga dhaqan qadada keliya dadka casuma yeela aan ku shaqayno haddii kaleeto maxaa dhici doontaa digrii buu qaatay mishaar buu qaataa teega way buu soo gadanayaa 25 buu gaaray hadday gabar tahay wiil tahay aroos buu saas ku aaday noloshii aad ku hayso ku noolaanaya gurigan hadhow ma sii wadayo soo khasaare maaha laakiin haddii ilmaheennu markay jaamacadaha ka baxaan oo wax bartaan aan barno sida loo noqdo dad waxtar le noo noqdo iyagoo waxtar le ayay naga tegayaan markaasay waxtarayaan fiirsada arrintaa fiirsada markay dad waxtar le noqdaan oo waxtar noqdaan galan oo adiga ku caawinaan oo soo adeegaan oo communitiga u tagaan oo tuushin bixiyaan oo masaajid ka shaqeeyaan oo guriga ka shaqeeyaan oo dadkii wax taraan ayuu wuxuu la guurayaa maskaxda ah reerkaaga marka adiga weeye gabadhaada caruurtaada baabuurkaaga shaqadaada muslimiinta magaaladaad degan tahay dadkii wax taran laakiin marka hore inaan soo barin that's why aan lahaa hadday horta wiil uu yahay wiilkii aabbaha loo doono haddaan aabba jirin abtiyo adeer ha loo doono haddii la waayo abtiyo adeerna dad coaches aan lacag ku bixinno sida wiilkii nin raga loogu diyaarin lahaa waayo wiilashu badanaaba hooyadaa wada koraysa gabdhaha iyo wiilasha gabdhuhu la koray aabbe max korin wiilkii barri markuu kaa tago societygii la dhaqmi kari maayo in iska honestiya adduunyo waru hayn rag la xaali karin dhaqan aqoon dad iska celin karin buu noqonayaa oo habar yari abti yaqaan bes shahaadana watoo daacada kaas yurub waddankiisii ma hadda ka kaxaya hadday saa noqoto sacuudi carabiga geenukaa muslimiinta geeya waayo saan niriga kuma noqon karo laakiin ninka ragga waa in aabi u warramo waa in meelaha communitiga la geeyo waa inuu lectures ka bixiyo waa maqasheen junior lectures junior senior junior dadka sidii loo kala sarreeyo macallin ku-xigeenku macallinka ayaa tababara dhakhtarka waaweyn kuwa yararka iyagaa tababara fiiri aabuu wiilka isagaa tababara waayo berita boski buu gelayaa waxaa ka warantaa saa ku dhici kartaa qofaan waxba la tababarin maanta inay raa dhakhtar noqo macquul maaha waa intaas soo maro waa in laga eego waxaa la mid ah sen family buu yeelanaya maxaa u diyaara yaa qiimeynaya ma hayno waxaa maqlaysaa arooska maasha allah hebla gabadhayada ahaa wiilkayaga maxaa ku dambeeya ogtihiin qaladku hadda intuu ka imanaya marka waa in la soco ko dadkeenna please anigu hadda anaa isla xilqaamay anigu opportunity hadda anaa haysto talooyin baa lay siiyey dhallinyaradeennan say wallaahi dheh waxa weeye communitigu dadkoodu kolkoodu waa in laga shaqaysiiyo waa in sentaro loo ijaaro waa in lajaro soo jiidayaan hadday rabaan ingiriis ha ku akhriyaan marka hore waxay rabaan ha ku sheegaan ha dhowto iyagaa dadkii la qabsanaya waddankii ha tagaan waa ka sheekeeyey dadka fasaxa aadaya oo dhallinyaradan aan ka sheekeynaya wax bartay biliis markay soomaaliya tagaan ha shaqeeyaan kii macallin waxbarashada ka shaqeeyo kii xisaabiya maaliyadda ka shaqeeyo kii khibrad bay soo helayaan waa waddankoodii waxbay qaldayaan waxbay saxayaan laakiin westernka noloshu waa try waddan bay dadkana leeyihin background bay leeyihiin dad la gumaysto ma aha laakiin innagii waa waru hayn see baan ugu faa'iideynaa war muu haynaa maya waa korinay 18 meeting waa naga tageen maxaa qaaway waxaa la mid tahay qof intaa beeranayay oo mahaa ka qatan baa noqonaysaa marka maxaan ka rabnaa carruurtaan kulinayno kow inagu waxaan ka rabnaa kow waxaan rabnaa dad noqdaan meel gaaraan labo inay wax istaraan micnaha labo inay inaga waxna taraan saddex inay communitiga wax taraan islaamka inay wax taraan soomaaliya wax taraan communitiga ay ku nool yihiin inay wax taraan
haddii kale qof aan shaah samaysan karin, nin barya haddii gabar lagu daro 6 bilood aan ahayn karin, nin aqoon leh laakiin aqoon dhagaala xataa aadan isfahmahayn, qaladkaa iska leh, innagaa iska leh, waalidkaa iska leh, communitygaa iska leh. dadkan ummadahan kale oo asian backgroundka waxoo dhan carruurtooda wiigendiyada waxaa la geeyaa masjidada, waxaa lagu daraa culimadooda, dhaqankooda waa la dhex geeyaa, waxay dhex fadhiistaan raggoodii, markaasay dhaqankii baranayaan. waayo bulshadii berita ay dadkoodii weeye berito, dadkan meel kale kama iman. haddii kaleeto carruurteen waxay noqonayaan dad waaweyn aan dad lahayn oo dhaqan lahayn oo culture lahayn. innaga inagu soo noqonaysaa. anigu masajkaas marar badanna waa sheegay. taasi waa mid. arrinta kale oo muhiimka ah carruurteena maasha allah beautiful and brilliant. markay hoose dhexe secondary waa carruur cilmi badan, waana carruur talanti ah, faham badan. qur-aankana ilaahay, qur-aanku waa scientist, waa adduunka science hadduu jiro scientista la sheego, cilmiga qur-aanka ku jiro physics inta ku jiraan, carruurta qur-aanka barta waa ilaahay faham buu siiyey. laakiin faham keliya looma baahnaa. emotionally ilmuhu inuu settle yahay, inuu jacayl haysto, inuu naxariis haysto, inuu aabba haysto, inuu reer haysto, inuu environment haysto, inuu waa la rabaa. kale maha haystaan keliya. haddii kale sugaa haystaan dagaal galaya waa khasaaro. tana waa ka hadlay. hataa la waalidka ruuxda laga soo bilaabaya oo ah waalido you need physical energy, emotional energy, mental energy and spiritual energy. maxay kala yihiin? tamarta raashin fiican inaa cunto waa physical energy, mental energy waa inaa sound caqli caafimaad qabto mentally, spiritual energy waa inaad diin haysato iyo ciido, iyo emotional energy waa inaad faraxsan tahay, waxaad jeceshahay qabanayso, dadaad jeceshahay dhex joogto, waxaad jeceshahay ku dhaqmayso, you enjoy. carruurtaaduna iyagoo intaas haysta ayay kaa tegayaan. taas waa mid. arrinta kale A to Z tusaale weeye. A, B, C, D to Z. I don't know how many, 28, 26 words, letters. A baa u sarraysa, soma Z baa u hoosaysaa. waxaan macquulahay oo aan marna macquulahay oo aan dhici karin inaan idhaahno cunug kasta oo soomaaliya oo dhasho oo iskuul aada dhakhtar iyo macallin baan u rabaa. to Z waa bulshada weeye, bulshada maqaam positionskeeda weeye. hadday jaamacad tahay, zedna waxay noqonaysaa qof ka soo qaad intri sameeye kasoo qaad ka dhigno. waxaan macquulahay inagoo soomaaliya nahay adduunka ma dhacdo. ummad 100,000 oo coro ku raba dhakhaatiir noqon ma dhacdo. ingiriiska aan lahayn. laakiin inagu qorshaha kuma jirno. tuushin baa bixinaysaa, star baa rabtaa, dhakhtar baa rabtaa, injineer baa rabtaa. waxaadan ka fekerin dhowr waxyaabo. waxaadan ka fekerin dhakhtarkan aad rabto ability wise. ilmahani waxaa la yidhaahdaa research waxaa la sameeyey, waxaan dhakhtarnimada iyo waxa laga sheekanaya professionalska waa hawl gaara oo u baahan in si gaara cunugaas loo fangareeyo, loola socdo waxyaabo badan. sidaas marka inagu alxamdulilah haddii la yidhahdo magaalaan degan nahay 50,000 baan nahay, 5 dhakhtar nagu filan Soomaaliya baan nahay, 5 injineer, 5 dhakhtar, 5 caalim, 5 tiijar. tartiib aa soo koraynaa. maxaa dhahay marka? innaga waxaan isbaru dhigaynaa innaga iyo ummadahan dadka misalaba asian background oo inagu wax badan aan isugu dhownahay. waxaan idiin sheegayaa, waxaan rabaa inaan diso dadkan aan ka sheekaynayo iyagu to Z bay buuxinayaan. mid waa dhakhtar, mid waa farmashiist, mid waa teacher, mid waa halkaas waa soconayaa ilaa mid faan wada arkaysaa oo shaqaysta masaajidka safka hore ku jira. Mr. Ahmed, you remember me? This is my wife, my children. faan buu wataa, waa shaqaystaa, gurina waa leeyahay. innagii maxaa niri? ama dhakhtar ama xarig wax u dhexeeya male, injineer ama xarig wax u dhexeeya male. waayo gaabkaa inoo qorshaa noogu jirto. waxaan akrinayay ilaa 8 meel la maro, A levels, T level, apprenticeship, FEQs, entrepreneurship, trainee. waxa urumahayno
hal jid baa maqanay soomaaliya dhakhtar iyo injineer baa leenahay inagu are we ready economically are we ready dhaqaalahaan diyaar ma unahay dhakhtar iyo injineer cunugiiguna barto kombiyuutar ka soo qaad cunuga dhakhtarka wuxuu baahaya kombiyuutar 2,000 moo gadi karaan maadooyinkaa ku adkaanaya tuujin muu qaban karaan so halkaa marka la eego inagu alxamdulilah haddaan idhaahno okay 10kii familiba ama 20kii familiba hal qof dhakhtar inoo galo okay inkastoo alxamdulilah hadda inagu waa fiicannahay marka laga helo professionalska maxaa marka soo baxay maxaa soo baxay wiilasha ugu badan oo laga qaylinayay umaraha kale maxaa nidhi tusad bay buuxsheen soo sidaa daraaddeed uma baahna waxa weeye dhakhtar ka imow halkaas soo soco dukaan baa laga shaqeeyaa security baa laga shaqeeyaa uber baa laga shaqaynayaa bas baa la wadaa assist teacher baa la yahay teacher baa la yahay business baa laga shaqeeyaa malcamad baa la dhigaa caalim baa la bartaa t levelkaasaa la qaataayo farmo waxaa la bartaa engineering mechanic baa la bartaa baabuurta laga shaqeeyaa muxuu ahayey waxaa la plumbing iyo wax laga shaqeeyaa dhismaha la bartaa nursing baa la bartaa oo rag iyo wiilo leh qol nooco caafimaadka laga shaqeeyaa kulligood dhakhaatiir maaha qof kastaaba waa ladan yahay 22 jir weeye waa muslim wuu tukanayaa wuu shaqaystaa guri buu leeyahay intaasaa muhiim inagii fiirsada soomaalida inagii dhaqankeena fiirsada cunugii kow hadduuba hadda ka baxo ka socon GCSE muddo fiican buu kaga baxay kuleejka dhib baa ka jirta waxaa la yidhahdaa kuleejka 50kiiba 3 baa jaamacad gaar ah inta kale meel dhexe ka dhexdan waa gartood min wadaad oo star wato 16 jira aabe soo korin qolaa xabadka ku dhifanaya gaangiibu inta ka gelaya waay wax daba socda male islaantina single maamti waa ka hartay meel dhexe uga hartay soo soco kii jaamacadda galayna ma sii wadi karo role model ma haysto marka waxaa tala iga ah waa inaan ku talagalno carruurteenna ka baxaya iskoolada sanad kasta GCSE waxaa ka baxa soomaali maryoolay say 50,000 UK let's say UK on ka hadlaynaa 50,000 dhakhtar mooda noqon karo 50,000 higher mooda noqon karo 50,000 biology physics kulli mooda samayn karaan qaar baa niidniba qaar baa foundationa qaar baa leydi wanaya qaar baa grade 1 iyo 2 keenaya qaar baa imtixaanka dhacaya masuuqaan ku daynaa oo wiilashii xabsi bay halkaa ku galaan gabdhihiina mental illness baa ku dhaca mise qorshaan ugu talagalnaa sida ummadaha kale that's very important sidaa daraaddeed halkaa dhul waasicaa ku jira anug 18 jiraan waxaan adeer maxaa dhac GCSE I'm too old buu yiri yaa ku yiri too old baa tahay naag 84 jirta medical shahaadada siiyey 82 jir baa wuxuu 92 jir baa master samaynaya inagii marka halkaasaan maraynaa carruurtii marka waxay noqotay bacdama aanu dhakhtarna awoodin GCSE-na ku soo noqotay waxaa maqlaysaa crime buu galay welibana crimeka ugu badan la galo carruurta waxa weeye robbery wax la yidhaahdo lacag buu u baahan yahay laakiin haddaan odhan lahayn war GCSE makuu adkaatay war inagu jaamacad ma ka dhixi karnaa maya dheh farsamaa ku baraya 5,000 baa kaa shubaya baro electric baro oo mechanic baro oo security qaado oo laysin qaado akaas inagu laakiin tartan baan ku jirnaa aan jirin walaalayaal waxaa la yidhaahdaa halbeegga laysku xisaabiyo ma aha inaan dhakhtar soo saarto halbeegga laysku xisaabshaa marka laga eego successful waalidka guulaysta waxa weeye inaad soo saarto bulshada ku soo darto qof muslim ah oo isdabiri kara isna wax istaraa bulshadana wax taraa masajkeegu ugu badan galabta waa intaas waxaan u malaynayaa inaan aad u dheereeyey intaasaan ku joojinayaa kuwo kalena insha allah waa qaban doonaa khayr baan ii rajaynayaa waxaan qaldo naftayda iyo shaydaan baa shaqo ku leh waxaan wanaajinaa ilaahay haynoo wanaajiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu